madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo aatan ku sugan magaalada Dowxa ee dalka Qatar ayaa mar kale ka hadlay arrimaha ku aadan xiisada u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii badda ee dhexmaray Somaliland iyo Itoobiya. Xasan Sheekh Maxamuud oo ra'iisul telefishinka Al-Carabiya ee Al-Hadath ayaa sheegay in dowladdiisa ay sanad hadda qorshaha dagaal ugu jiray in Itoobiya dagaal la gasho bas oo hoosta ka cadeeqeen haddii ay isbedelaan inay ka falcelinayaan wasoo madaxweynuhu sheegay ملهين وحقرشاو وجديسو داينان دقال لقالو إتوبيا وقت حاضر كان لكن هدي وحسبة لان وين كفل علنا مركز يايو يلي حسن شيخ محمود تانا يوم وقتين صوماليا وسكو ديارنا يسو دقال فول كفول واي لقاش إتوبيا سو قلانو حونتا سكو داري إن هشيسي السفكرات إتوبيا سومالان كلا سعيدين ويهي ميلحاد قدو كوا شروطا أي ندام كعالميقا مدحوينها الصومالي وسدو كلا وحلقا ويديا بوقا شيسي دالك مصر ayaa waxa uu sheegay inaan isaga iyo sidoo kale Cabdilfataax Siisi ee madaxweynaha wadanka Masar aanay ka wada hadlin wax ku saabsan arrimo military ama in ciidamo Masaariya la keeno gudaha Soomaaliya waqti xaadirkan dhinaca kalena wuxuu ka hadlay arrimo ku aadan dagaalka ka dhanka ah kooxaha Al-Shabaab ee dawladdiisu ay xoog saartay sanadii la soo dhaafay wuxuuna ku hoosta ka xariiqay in badda fursad ay siinayso ama heshiiskan Somaliland iyo sidoo kale Itoobiya fursad siinayo kooxaha argagixisada ee dagaalka si uu si laba jibaaray iyagoo ka faa'iideysanaya dhalinyarada Soomaaliyeed maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ka faa'iideysanaya safgaradka Itoobiya iyo Muuse Biixi si ay ugu soo jiitaan dhalinyarada uguna biiraan xagjirnimada iyagoo marmarsiinyo ka dhiganaya in gaala ku soo duushay dhulkooda ayuu mar kale wareysiga ku yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay wali Itoobiya ay ku adkaysanayso go'aankeedii iyo soo kale heshiiska badda ee kowdii bishan ay la gashay Somaliland geestiisa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo wareysiiyay telefishinka dawladda ayaa hoosta ka careeqay in isaga iyo Soomaaliya aysan diidanayn bad la siiyo Itoobiya balse ay diidan tahay horumarka Somaliland Biixi ayaa soo dhaweeyay hadalkii jaamacadda Carabta ee ah in la ixtiraamo xuduudihii 60kii taasi oo uu yiri in Somaliland waa tay ku dhisan tahay isla marhaantana waa tan sharciga